uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro ayaa saakay soo gaaray magaalada Brussels ee xarunta wadanka Belgiumka. wafdigan oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga wadani Cabdiqaadir Jirde iyo xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga Maxamed Fadal iyo waliba Faaduma Saciid ayaa waxay kulan la yeesheen saakay gudiga baarlamaanka ee Yurub u qaabilsan qaaradda Afrika iyo arrimaha dibadda. waxaana wafdiga ay ugu warameen abaaraha baxsan ee waqtigan ka jira Soomaaliland iyo waliba sida loogu baahan yahay gargaar degdeg ah oo caalami ah in lala gaaro dadka ku dhibaataysan abaarahaasi. waxaana sidoo kale ka wada hadleen doorashooyinka madaxtinimada ee dhowrka jeer dib u dhacay Soomaaliland. xildhibaanada midowga Yurub ayaa waxay sheegeen siday ugu shaqeyn lahaayeen sida midowga Yurub ee u xoojin lahaayeen gurmadka abaaraha. waxaana mar kale ay ku celiyeen baaqooda hore ee soo saareen ay ku sheegeen sidii ugu yihiin doorashooyinka Soomaaliland ee dhowrka jeer dib loo dhigay. arrimaha kale ee kulankaasi looga hadlay ayaa waxaa kamid ah sidii Soomaaliland ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah oo wafdiga Soomaaliland ay sheegeen in wax weyn ay ku tarayso la dagaalanka argagixisada iyo tahriibka. dhanka kalena wariyaheena Cabdisalaan Hareeri oo la kulmay gudoomiye Cirro kulanka ee la yeesheen midowga Yurub kadib ayaa wuxuu weydiiyey waxyaabaha ay isku soo qaadeen kulankaasi. بسم الله الرحمن الرحيم. وفد بلادن oo ka socda xisbiga wadani مدن عبد القادر جردي دكتور فضل فاطمة سعيد وكيلك أمين فوق جارك وضمضة يوروب فرديس يهي دلك الدنمارك وحن هالكانوا نمينا وكلا هذا الله برلمان كيوروب أرنت قوم هي مسني وحويان أرنت ما أنت كتاجر سوماليلاند يجيسكبا يدلك الصومال دكتور أبارتا يسي لو سو غرمن لها شعب غاس waxaanu kaloo halkan u nimid inaan kala hadalno arrinta Soomaaliland guud ahaan ictiraafka inuu muddo dheer doonaynay iyo ictiraafka doorka uu ka ciyaari karo haddii Soomaaliland la siiyo oo ay ka mid tahay nabadeynta ama nabadda geeska Afrika guud ahaan la dagaalanka argagixisada shaqo abuurka yareynta tahriibta yareynta ama la dagaalanka burcadbadeeda. waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaabahan kala hadli doono kaalinta ilaa imika midowga Yurub ay ka qaadanayaan arrinta ugu weyn ee geeska Afrika ka taagan oo Soomaaliland ay ka mid tahay oo taabaraha sidoo aragtay ilaa imika waxaas le doorka Yurub door weyn ka qaadatay oo ballanqaad weyn bay samaysay inay abaarta ka qayb qaadanayso lacag badan oo ay ku ballan qaadeen. waxa laga yaabaa lacagahaas inaanay markiiba dadka soo wada gaarin laakiin ballanqaadku waxaan rajaynaynaa inuu soo gaaro dadka xitaa haddii roob doo dadku baahidii weli way qabaan. inkastoo maanta la sheegayay roobabkii ay curteen haddana sidaa tilmaantay haddii gargaarka lagu yabo haya baaxadda leh uu ku soo gaari waayo waqtigii loogu talagalay maxaa dhici karaad isleedahay? waxaan qabaa dadkii dee way jirtaa baahidii 80% ama 90 xoolo waa ka dhamaadeen hoygii uu ka dhamaaday meel ay galaan ma haystaan meel lagu cuntada lagu siiyo feeding centers ma jiro marka baahidi way jiraysaa muddo dheer hadda durubdo. dhinaca kalena gudoomiye Cirro iyo wafdigiisa ayaa caawa waxay ku balansan yihiin inay kulan la yeeshaan jaaliyadda Soomaaliland ee wadanka Belgiumka iyo waliba sidoo kale wadamada kale ee u dhow. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashka Universal TV xarunta midowga Yurub Brussels Belgium.